kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka bayaanka danab waxaan ku soo qaadanaa sheekooyin iyo warbixino ku saabsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab. barnaamijka waxaa jimco kasta 10 barqanimo aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab iyo Facebook-ga Danab Media. waxaad sidoo kale ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Baydhabo, Radio Kismaayo, Radio Galgaduud iyo Radio Beledweyne. isla maalinimada jimcaha saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo. barnaamijka waxaa toddobaadkan ku soo qaadan doonaa wararkii waaweyn toddobaadka ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab. ciidanka kumaandooska danab oo qaaday jidgooyin yaale wadada u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee ku sugan gobolka Mudug oo u gurmaday dad barakacayaala. ciidanka danab oo ka taageeray maamulka Koonfur Galbeed qorista ciidan cusub. sheekooyinka in barnaamijka inta ku guda jirna daawadayaal ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah wada shaqaynta ciidanka danab iyo haweenka Soomaaliyeed si loo taageero bulshada deegaanka iyo xoojinta amniga. waxaa kaloon idin ku haynaa barnaamijka inta ku guda jirno shaqada ay qabatay idaacadda ku hadasha afka ciidanka kumaandooska danab ee Danab Radio iyo sida ay u hesho xogta dadka deegaanka. barnaamijku waxaa idila socodsiinaya inta hawada ka baxaya Noshlaawa Cabdullaahi Cabdiraxmaan. mar kale daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka bayaanka danab. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa ka qayb qaatay qaadista jidgooyin yaalay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo kadib howlgal ay maalintii Khamiistii sameeyeen. howlgalkan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen ciidanka daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu guuleystay in lagu qaado in ka badan 10 isbaaro oo yaalay halka lagu magacaabo Balow iyo waliba Daa'uud Buulo oo ka tirsan degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose. inta uu howlgalku socday ayaa waxaa la burburiyay jidgooyinkaas waxaana ciidanku soo xireen maleeshiya hubeysan oo lacag sharci darro ah gaadiidka kaga qaadi jiray isbaarooyinkan. saraakiisha danab waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan inay taageeraan ciidanka deegaanka ilaa inta laga xaqiijinayo ammaanka deegaanka lagana hortegayo falalka ammaanka lidiga ku ah. ururka 6aad ee guutada 16aad ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa raashin u qaybiyay dad barakacayaala oo ku barakacay deegaanka Wisil ee gobolka Mudug. ciidanka oo ku jira mid ka mid ah howlgallada joogtada ee ay sameeyaan ayaa la kulmay qoysas danyar ah oo dhawaan ku barakacay Wisil, waxayna ugu deeqeen raashin isugu jiray bariis, bur, timir iyo waliba saliid. taliyaha ururka 6aad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab Dhamme Cabdiladiif Axmed Fayfle oo horkacayay ciidanka deeqda bixiyay ayaa sheegay in danab ay ka go'an tahay inay dhinac kasta ka taageerto bulshada Soomaaliyeed. wuxuu sheegay in danab ay sii wadi doonto inay shacabka Soomaaliyeed garab taagnaato kana difaacdo cadawga halista ku ah noloshooda. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab kuna sugan saldhigga Beledoogle ayaa maamulka Koonfur Galbeed ka taageeray qorista ciidan iyo diiwaangelinta askar cusub oo maamulka u tababaranayo si ay qayb uga noqdaan ciidanka ammaanka. danab ayaa ka caawisay dhinaca farsamada iyo tasiilaadka uu maamulku u baahan yahay si uu u qorto dhalinyaro ka mid noqonaya ciidamada booliska Koonfur Galbeed, kuwaas oo marka ay tababar ka dhameystaan la qorsheynaya inay ka howlgalaan degmada Walaweyn, aaga Beledoogle iyo deegaanada ku hareeraysan. kumaandooska danab ayaa badanaa gacan ka siiya ciidanka maxalliga ah tababarada iyo waxa ay u baahan yihiin si ay u sugaan amniga deegaanadooda. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen wararkii toddobaadka ciidanka kumaandooska danab. wali waxaad daawanaysaan qaybtii shanaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka bayaanka danab waxaad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab. rukumo oo ku xidhno bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab waxa ay leeyihiin xafiis u qaabilsan arrimaha bulshada kaasoo kala shaqeeya dadka rayidka ee ku nool meelaha ay ciidanku ka howlgalaan fulinta waxyaabaha ay u baahan yihiin. haddaba warbixinta soo socota waxaynu ku eegaynaa sida ciidanka gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ay u xoojinayaan iskaashiga ay la leeyihiin haweenka Soomaaliyeed si looga taageero arrimaha amniga iyo adeegyada bulshada. kulankan wuxuu u dhaxeeyaa saraakiisha xafiiska arrimaha bulshada ee danab iyo qaybaha bulshada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaa looga hadlayaa xaaladda dadka deegaanka sida amniga, caafimaadka iyo waxbarashada. kulanku wuxuu ka mid yahay iskaashiga joogtada ah ee uu xafiiskan la leeyahay shacabka
shirkan waxaa warbixin ku saabsan baahayaha shacabka qabaan looga dhageystay dumar matalayay bulshadooda. Xafiiskan wuxuu ka shaqaynayaa in uu dhiso xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya kumaandooska danab iyo haweenka Soomaaliyeed. Saraakiisha xafiiska arrimaha bulshada waxay rajeynayaan in iskaashigan cusub isku soo dhawaansho sidii hore ka ballaaran ka dhex dhiso danab iyo haweenka. kulankaas waxaa ku saabsanaa isdhexgalka bulshada iyo ciidamada danab iyo sida uu ogaano cabashooyinka ay qabaan ay ka tabanayaan deegaanka baaxooyinka deegaanka ka jiro. intii kulanka uu socday waxaa haweenka soo jeediya nuuca horumarka ay bulshadooda u baahan tahay ee ay ka doonayaan in xafiiska arrimaha bulshada ee danab uu ka taageero. Haweenka Soomaaliyeed weligoodba waxay hormuud u ahaayeen bulshada. Qaar ka mid ah haweenka ka qaybgalaya kulanka waxay sheegeen in ay rajeynayaan in bog cusub uu u bilowdo wada shaqaynta ka dhaxaysa danab iyo bulshadooda. maanta waxaan u imaaday shaqo arrimaha bulshada danab inaan la shaqeyn naga dhaxayda maca shacabkeena. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin, aad baan ula dhacsanahay, si wanaagsan oo wanaag badan ay noola dhaqmaan noolana shaqeeyaan. maanta waxaan u imaanay arrimaha iyaga ahayd danab garabkooda Allah galay inaanu la socodsiino ee hurdadanadii hurda danab isku haleyn aan u seexano horjoogayaashanadii ilaalinteeni wax walba ay noo qabtaan. maanta baahiyaheena gaarka inaan kala hadalno ciidamadeena danab oo mar walba garabkeena taagan. daadejinta adeegyada bulshada ee xafiiskan danab uu u sameeyo shacabka wuxuu kala kaashadaa maamulka degmada Wallaweyn. wada shaqeynta shan u yeelan lahayn oo joogto ah degmada Wallaweyn iyo Beledugla danab iyo ciidamada guud ahaan ciidamada SNA wada shaqeyn lahayn magaalada amnigeeda dib loo soo celin lahaa iyo wadadan oo dheer isku xirta gobolada Soomaaliya oo ilaa Gedo Bay Bakool ilaa Kenya marta oo wadadan wax loo marsiyo ummadana lagu dhibaateeyo oo ummadii cawshada soo gaartay oo wax badan nagala qabteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed SNA iyo danab. dhismaha iskaashiga iyo kulamada noocan oo kale waxay qayb ka tahay siyaasadda danab ee sare looga qaadayo horumarka bulshada deegaanada ay ciidanka ka howlgalaan. Sarkaalkan danab ka tirsan wuxuu sheegay in danab ay sii wadi doonto in ay garab istaagto dadka Soomaaliyeed markasta iyo meel kasta oo ay joogaan. bulshada si wanaagsan baa ula shaqeeyaan, ayagana waana la shaqeeyaan. waxaa u qabanaa sida baaxooyinka oo ayaga qabaan sida caafimaadka, waxbarashada, ceelasha oo waxay u qaban karno waxyaabo badan oo u ballan qaadnay. horeyna waa u qabanay maartay haddana waa sii wadaynaa insha Allah hadaa la yiraahdo. Isdhexgalka bulsho ee ka dhaxeeya danab iyo shacabka wuxuu abuurayaa jawi isku soo dhawaanshiyo ah, waxayna ka taageeraysaa ciidankan sida gaarka ah u tababaran gudashada waajibaadka ka saaran amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. idaacadda danab oo ay leeyihiin ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab waxay muuqaal dhab ah ka bixisaa waxay u taagan yihiin ciidanka danab, waxayna bulshada siisaa warar iyo macluumaad muhiim ah, waxayna ka hortagtaa propagandada al-shabaab maadaama ay al-shabaab aanay u ogoleen bulshada inay helaan warar sax ah. raadiyaha waa aalad warbaahineed oo muhiim ka ah gudaha Soomaaliya oo ay dad badan ku xiran yihiin dhageysigiisa. wuxuu ahaa isha ugu weyn ee Soomaalidu ka helaan xogta tan iyo markii la dhisay Radio Muqdisho sanadkii 1950. waagaag dhageystayaal barqa wanaagsan ayaan idin leenahay. waxaad dhageysanaysaan warbaahinta codka ciidamada kumaandooska danab 99.9 Beledugla. saldhigga kumaandooska Soomaaliyeed ee danab waxaa hawada ku jirta idaacadda codka ciidamada ku hadasha ee danab radio oo hadda baahinayso wararka maalinlaha ah. idaacaddan oo la aas-aasay sanadkii 2017 waxaa laga dhageystaa Beledugla, degmada Wallaweyn iyo tuulooyinka ku hareeraysan, waxayna baahisaa warar, suugaan iyo barnaamijyo ku saabsan
howlaha iyo horumarka danab. barnaamijyo fara badan ayaa jiraan sida barnaamijka bayaanka danab oo kale oo maalinta jimcaha 9 saac ay bar ay dhageystayaasha ay dhageystaan. barnaamijyo kale oo guulaha ciidanka kumaandooska danab ayaa dheelilaha maalmihii jadwalka maalinlaha aan idaacaddiina hawadii ku jirto oo ka mid ah ay dhageystayaashuuna ay aad iyo aad u dhageystaan. iyadoo kooxda al-shabaab ay diidan tahay jiritaanka warbaahinta caadiga ah si aysan dadweynaha u helin macluumaad xaqiiqo ku dhisan, isla markaasina ay badanaa weeraraan suxufiyiinta, ayaa wariyaasha idaacadda ka howlgala ee uu xasan diiriye maxamuud ka mid yahay waxay ku dadaalaan sidii danab radio ay dhageystayaasheeda ugu soo gudbin lahayd warar runta ku dhisan. cabdifataax maxamed aadan oo ah sargaal ka tirsan xafiiska danab ee warbaahinta ayaa ka waramaya waxa ay danab uga baahan tahay idaacad ay leedahay. idaacaddan waxay u samaysantahay wax kale maahan inaan kala dagaalano argixisada farxadka ah fal walbo lid ku ah ummadda Soomaaliyeed inay maaragtay ku soo qaadaan ayaan ugu talagalnay inaan maaragtay bulshadeena ugu wacyigelino fariimaasna ugu dirno annagoo eegayna dadkeena badqabkooda mar walba. wariyaasha danab radio ka howlgala waxaa qiimo weyn ugu fadhiya in idaacadda ay u babac dhigto propagandada al-shabaab deegaanada aysan ka jirin warbaahinta kale. waxa ay ku faraxsan yihiin in iyaga oo kumaandoosta danab ka tirsan ay u tababaran yihiin maaraynta iyo wadidda howlaha idaacaddan. horumarada ay gaarayaan ciidanka ay bulshada ay ogaadaan militariga hadduusan u lahayn warbaahin ama meel xog loogu soo gudbiyo aad u dhibaato badan tahay. laakiin hadda waxay leedahay xog wariyaal raacaya ama ka tirsan ciidanka oo aan ahayn shacab ciidanka la socdo xogta ciidanka la soo gudbinaya sidii bulshada Soomaaliyeed ay u dhageysan lahaayeen. tan iyo markii danab radio hawada soo gashay, aragtida shacabka deegaanka ay ka qabeen kumaandooska ayaa isbedeshay. waxa ay heleen aalad ay ka ogaan karaan shaqada danab, fikraddana ay isku dhaafsan karaan. ninkan waxa uu ka mid yahay dhageystayaasha danab radio. amni sugidda meel amni ahayn meel amni ah oo maaragtay cilmi aan ka bartay iyaga noo sheegayna jiraan ka fahmay. idaacaddu waxa ay dhistay iskaashi xooggan oo ka dhaxeeya danab iyo bulshada, waxayna maamulkeedu rajaynayaan in isfahamkan looga faa'iideysto howlgalka ciidanku ay ugu jiraan soo celinta amniga iyo nabadda Soomaaliya. waxa xaqiiqa tan iyo markii la aasaasay idaacadda danab radio inay meesha ka saartay beentii al-shabaab, isla markaana bulshada ay u soo gudbisay warar ku dhisan xaqiiq iyo macluumaad saxa. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeeraya qaybtii 5aad ee barnaamijka bayaanka danab. ha mooganaan inaad ku xidhnaato bogga YouTube-ka ee bayaanka danab, ku dhufo calaamadan gabaleelka si aad ula socoto barnaamijka kan xiga. sidoo kale barnaamijka bayaanka danab ka dhageyso jimco kasta 3:00 galabnimo idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Galgaduud, Radio Baydhabo iyo Radio Beledweyne. waxaa naga xasuusina inaadan mooganaan barnaamijka toddobaadka dambe xilligan oo kale oo aan ku soo qaadan doono sheekooyin xiise leh. intaynu mar kale kulmi doono dhammaantayo isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.